warar dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgal ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed ay ka sameeyeen degmada Buurxakawe ee gobolka Baay. Howlgalkan ay ka sameeyeen ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed halkaasi ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen laba ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwaas oo halkaasi miina ku aasayay. waxayna boolisku sheegeen inay ka warhayeen dhagarta labada nin waxayna taasi keentay in halkaasi howlgal ka sameeyaan ayagoona ugu dambeyntii howlgallada halkaas ay ka sameeyeen gacanta ku soo dhigay. labada nin ayay boolisku ku sheegeen inay ururka Al-Shabaab u qaabilsanayeen falalka miinooyinka kuwaas ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka iyo ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed ayagu inta badan halkaasi adeegsada. sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed oo howlgalkan hogaaminayay ayaa sheegay in labadan eedaynasane ay u gudbi doonaan hay'adaha garsoorka iyo sidoo kale sharciga si sharciga loo marsiiyo. waxa ay sidoo kale sheegeen ay sii wadi doonaan howlgalkan ka dhanka maleeshiyada ururka Al-Shabaab ilaa ma inta ay ka xaqiijinayaan ammaanka guud ee degmada Buurxakawe ee gobolka Baay. maahan markii ugu horeysay ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed howlgallada halkaas ay ka sameeyaan ay ku soo qabtaan maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas oo dhowr jeer ay gacanta ku soo dhigeen ayagoo miinooyin ku aasaya degmada Buurxakawe ee gobolka Baay.